Wararka aan ka helayno magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen ayaa waxa ay sheegayaan in weli xaaladdu ay qasan tahay kadib markii maalmo ka hor xoogagga gooni-goosadka koonfurta dalkaasi Yemen ay la wareegeen inta badan magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. Xoogaggan maleeshiyaadka aad u hubeysan ayaa gudaha u soo galay magaalada Cadan, kuwaasi oo la wareegay inta badan saldhigyada muhiimka ah ee ku shaqeysa dowladda ku meel gaarka ee caalamku ay aqoonsan yihiin ee fadhigeedu yahay magaalada Cadan ee dalka Yemen. Dowladda ku meel gaarka ah ee caalamku ay aqoonsan yihiin ee fadhigeedu yahay Cadan ayaa waxa ay la tacaalaysaa dagaalada kaga imaanaya xoogagga maleeshiyaadka Shiicada ah ee Iiraan taageerto ee Xuutiyiinta ku sugan waqooyiga dalkaasi Yemen. Ayaa haddana waxaan ka helayno magaalada Cadan ay sheegayaan in xoogagga gooni-goosadka dalkaasi ay gebi ahaanba ay la wareegeen inta badan xaafadaha waqooyi iyo koonfureed ee magaalada Cadan ee dalkaasi. Ciidamadani oo aad u hubeysnaa ayaa waxa ay u itaal sheegteen ciidamo tiro yar oo dowladda ku meel gaarka ay leedahay, kuwaasoo fariisimo ku lahaa inta badan magaalada Cadan ee dalka Yemen, kuwaasoo markii dambe looga awood sheegtay. Xoogaggan gooni-goosadka ayaa markii hore waxay qabsadeen guud ahaan magaalada, waxaana markii dambe laga saaray xarunta madaxtooyada ee dowladda ku shaqeyso halkaasi. Dowladda Sacuudiga ayaa ugu baaqday maleeshiyaadkani qabsaday magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen in gebi ahaanba ay isaga baxaan, haddii kale la eegan doono qaraxyo kuwaasoo lagu weerari doono goobaha ay kaga sugan yihiin magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen. Sacuudiga ayaa waxa uu alaaba bartilmaameedsada maleeshiyaadka Shiicada Xuutiyiinta dalka Yemen ee ku sugan waqooyiga dalkaasi, maadaama ciidamadaas dowladda ay caqabad ay ku yihiin maleeshiyaadka Shiicada Iiraan taageerto ee ku sugan waqooyiga dalkaasi. Dowladda Sacuudiga ayaa alaaba waxa bartilmaameed ay ku sameysaa goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka, taasoo khasaaran ay kasoo gaarto dadka rayidka waxba galabsan ee ku sugan goobaha lagu dirirayo. يلا بسم الله الله اكبر.